kulan wacan oo wanaagsan daawade halkani waa channelka wararka ee Somali Barays ku soo dhawaada tabintan gaarka waxyaabaha aynu ku iftiimi doono waxa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne Ali Guudlaawe Xuseen oo hal arrin kala hadlay saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM iyo kuwa maamulkaasi haddaba maxay tahay arrintaasi waxaa jiro dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda magaaladaasi mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Hirshabelle iyo saraakiil ka socota dawladda Soomaaliya ayaa soo gaartay maanta Beledweyne xaaladihii ugu dambeeyay ee magaaladaas ayaan kaga warrami doonaa muuqaalkan ee fadlan hadduu ku soo gaaro si share garay saaxiibada kalena la sii wadaag boggeena Somali Baraysna ku soo biiro follow garay haddii aynu ku bilowno madaxweynaha maamulka Hirshabelle Ali Guudlaawe Xuseen ayaa maalintii labaad ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo shalay soo gaaray waxaana ilaa xalay uu ka wada halkaas kulamo kala duwan oo la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta hore halka ugu sugnayd kulan ayuu maanta la yeeshay saraakiisha ciidamada amniga ee dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM madaxweyne Guudlaawe ayaa shir gudoomiye shirka amniga waxaana shirkaasi ka qayb galay wasiirka amniga Hirshabelle maamulka gobolka Hiiraan taliyaha qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka taliyaasha guutooyinka shanaad afaraad ee qaybta 27 ee ciidanka xoogga xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha ciidamada booliska Hirshabelle taliska qaybta gobolka taliyaha ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka gobolka Hiiraan waxaa kaloo shirka qayb ka ah saraakiisha ciidamada Gorgor iyo Haramcad oo howlgal u jooga magaalada Beledweyne iyo saraakiisha ciidamada AMISOM waxayna Ali Guudlaawe madaxweynaha maamulka Hirshabelle ay kaga warbixiyeen xaaladda guud ee amniga gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne Ali Guudlaawe Xuseen ayaa faray tilaabo adag ciidamada waxaana sheegay in loo baahan yahay in amniga si guud gacanta loogu qabto maadaama cabsi ah kacdoonka ciidamadii gobolka Hiiraan hore ugu sugnaa ee kacdoonka gobolkaasi ay dhaqdhaqaaqyo xoogan haata wadaan xoga sheegay in General Xuud maalmaha soo socda ay ku soo wajahayaan Beledweyne ay soo tarayaan maadaama uu sheegay ballantii hore looga galay oo looga baxay isla markaana Ali Guudlaawe Xuseen oo muddo hal sano ka badan ay ka soo horjeedeen Beledweyne la geeyay ciidamada waxaa ka dhalatay hadalhayn xoogan tagitaanka Ali Guudlaawe Xuseen muddo hal sano iyo bara kadib doorashadiisii magaalada Beledweyne waxaana General Xuud oo hogaamiyihii kacdoonka gobolka Hiiraan oo muddo ka soo horjeeda oo sheegay in maamulka Hirshabelle uusan markii horeba cadaalad lagu aasaasin magaalada Muqdisho loo kaxeeyay taasoo la sheegay wada hadal rasmi ah loo bilaabi doono isla markaana tabashada ay qabaan la tirtiri doono balse General Xuud oo tira dhowr jeer warbaahinta ka soo muuqda ayaa sheegay inuu san jirin waxa haatan gacanta ku haya marka laga reebo kulan la qaatay madaxweyne Farmaajo mowqifkiisii ahaana inuu Ali Guudlaawe Xuseen tagin Beledweyne wali aaminsan yahay balse taasi waa jabto oo Beledweyne waxa uu shalay soo gaaray Ali Guudlaawe Xuseen iyadoo halkaasi si diiran lagu soo dhaweeyay inkastoo iska hortaag damceen kacdoonka gobolka Hiiraan inay ku sameeyaan balse waxa awood ciidan u sheegtay saraakiisha ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi ay gashay oo majaxaabin siyaasadeed General Xuud kaga kaxeeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Ali Guudlaawe Xuseen ayaa wararka hoose waxay sheegayeen qorshihiisa rasmiga uu yahay inaysan haatan ahayn wada hadal uu la furi doono qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiinta gobolkaas balse kaliya ay tahay sidii doorashada si xasiloon ugu dhici lahayd isla markaana shakhsiyaad fila Soomaaliya wadato oo gooniya lagu soo saari lahaa Fahad Yaasiin la taliyaha gaarka ee Farmaajona dhawaan uu soo gaari doono magaaladaasi oo doonaya sanadkan dhankiisa xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya doorasho kadib ayaa xogaha tibaaxayeen in Guudlaawe isku diyaarinayo wada hadal uu la bilaabo mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo waxgaradkooda si tabashada taagan ee Guudlaawe lagu diiday inuu tago magaaladaasi muddo hal sano ka badan loo xalliyo dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Hagar Dabageed oo wareysi bixiyaha ayaa xusay inaysan Ali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Hirshabelle aan xoog lagu keenin Beledweyne balse isagoo qorshekiisu ku yimid tahana markii ugu horeysay oo yimaado Beledweyne balse hore caqabado u jiray awood uu imaan waayay Dabageed madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa tira dhowr jeer hore u sheegay in ciidamada dawladda ay magaalada keenta Beledweyne ay yihiin kuwa ay kaga gol leeyihiin inay ku xoreeyaan gobolka Hiiraan ee kala go'goonay la isugu kooshi karin maadaama Al-Shabaab meelo badan ay kaga hareereysan yihiin sidoo kale waxa uu hore u xusay in loo baahan yahay ciidamo dheeraad lagu soo daro balse taas ayaa u muuqatay in kaliya ujeedka laga lahaa ay ahaayeen keenitaanka Ali Guudlaawe Beledweyne maadaama General Xuud oo taliyo u ahaa kacdoonka saraakiisha gobolka Hiiraan Muqdisho la geeyay inta ayaan ku soo gabagabeynaa tabintan gaarka daawade haddii ku soo gaara muuqaalkan si share garay saaxiibada kale si gaarsi waad ku mahadsantahay daawashada Somali Barays si la mid ah muuqaaladan ayaan halkan ku soo baahi doonaa maalin kasta ee la soo xogaha muhiimka ah in soo galin mahadsanidin